Saraakiisha NISA iyo booliska gobolka Hiiraan ayaa looga yeeray magaalada Muqdisho kadib qaraxyadii mataanaha ahaa ee saddexdii bishan ka dhacay Beledweyne oo ay ku nafwaayeen dad ka badan 30 ruux oo isugu jira madax shacab iyo ciidan intaba. Saraakiisha Muqdisho dowladda dhexe ee Soomaaliya uga yeertay ayaa ka ah taliyaha qaybta booliska gobolka Korneyl Isaaq Cali Cabdulle iyo taliyaha NISA ee Hiiraan Colaad Cabdilaahi Dalabey. taliyaha qaybta booliska gobolka Korneyl Isaaq Cali Cabdulle oo shalay gaaray Muqdisho ayaa ila wareedyo lagu kalsoonaan karo waxay warbaahinta madax bannaan ay u xaqiijiyeen in xabsiga loo taxaabay korneelka. Warka ayaa intaasi ku daraya in ciidanka Alpha Group ay hoygiisa kala baxeen Korneyl Isaaq Cali Cabdulle taliyihii qaybta booliska gobolka kadibna ay sidaas xabsi u dhigeen. sidoo kale taliyaha NISA ee Hiiraan Colaad Cabdilaahi Dalabey ayaa isna wararku ay sheegayaan in maanta lagu wado in uu gaaro magaalada Muqdisho isagoo u hoggaansamaya amarka kaga yimid dowladda dhexe ee Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa taliyaasha NISA iyo booliska gobolka Hiiraan ku eedeeyay shalay inay gabeen doorkoodii sugidda amniga Beledweyne iyo wax ka qabashada dadkii ka dambeeyay qaraxyadii ka dhacay Beledweyne oo dad badan ay ku nafwaayeen qaar kalena dhaawacyadooda xilligan lagula tacaalayo Muqdisho iyo Beledweyne. saddexda baabuur ee subaxii hore laba soo gudubtay midna galabtii soo gudbay saddexdu buundaasi ka soo gudbeen labada dhinacna waxa ka jooga ciidan askar baa ka joogta booliis ah ayaa laba dhinac ka jooga taliye qaybta booliiskan ku yiri ruuxani maxay yihiin ilaa hadda qof loo xiray ma jiro dembiga inta leeg qof xil iska saara ma jiro xitaa wuxuu ka baaqsaday markii labada shil ee hore dhacday inuu tilaab ka qaado oo buundada uu tago oo labada buundo amnigooda xajiyo ayaan farnay mana ku camal falin. waxaa kaloo wax laga naxa ah oo wax la yaab la ah qaybta nabad sugidda inaan qaraxa baabuurka ku war helno jugta inaan ku war helno oo qaraxa intaa la eg taliyii qaybta booliiska muxuu ahaa nabad sugidda halkan joogay wax uu hay-addii sirdoonka ah ee la rabay waxa dembiyada dhacaya intooda badan ee laga hortagay la fashilinayo xogta waxa keena waa nabad sugid habay yaraatee wax xil ah iyo wax shaqo ah askarina waa joogtaa meel askar la'aanuu ma jirto waxaan filayaa 90 askari ama askar inay gaaraysaan u malaynay ayaa nabad sugidaha joogta kuwana dhowr boqol oo askari booliiska waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanayaa labadaas sarkaal in hoos loo fiiriyo mas'uuliyad darrada meesha ka dhacday waxaana ku eedaysan oo falka meesha ka dhacay mas'uuliyadda dusha ay ka saaran tahay labada taliye qayb waa ka nabad sugidda iyo qaybta booliiska geedka ragaga waxa maxkamad lagu saaray hadda ka hor saraakiil 1984 ay ahayd waxaa dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo Cali Shiino oo degmada Matabaan kaga beegan dhinaca galbeedka ayaa waxa ka dhacay dagaal waxaa la jabshay ciidankii Soomaalida laglanjansa ka timid saraakiisha ayaana ciidanku ku jabay 5 sarkaalaha maxkamad lagu saaray meesha waana la toogtay haddii ciidanku laglanjansa taliyaha ka timid oo jab ku gaaro koodisha binaale xeerka cinqaabta ama buugga ciidamada markii la yiraahdo dil toogasho.
saraakiisha nisa booliska iyo militariga Soomaaliya ee Hiiraan ka howlgala ayaa waxaa soo magacaawday dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana hadba sargaalkii lagu eedeeyay xil gudasho la'aan dowladdu ay ka qaadaa xilka iyada oo dowlad goboleedka Hirshabelle xilliyada qaarkood ay ku leedahay doorka barboosarka iyo sidoo kale la tashi magacaabista ama xilka qaadista saraakiishaasi qaarkood. Beledweyne waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ee qaraxyada khasaaraha fara badan ka dhashay ay ka dhaceen isla markaana weli aan la arag cid lagula xisaabtamay ama qaada mas'uuliyadda qaraxyadaasi, balse waxaa haatan muuqata isla xisaabtan iyo sidoo kale in la helo cid qaada mas'uuliyadda waxyaabihii dhacay iyada oo laga ambaqaadayo hadalkii shalay ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan.